madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu sheegay in gobolada bariga Somaliland ay xukuumaddu isugu geysay awoodoodii oo dhan taasi oo looga gol leeyahay in colaadda qabiiliga ee ka jirta lagu soo dabaalo nabad iyo xasilooni. madaxweynuhu xalay khudbad ka jeedinayay munaasabad loo qabtay xuska 26 Juun ayaa waxa uu sheegay in khilaafka xisbiyada ka dhex taagan kulan lagu dhameynayo tabashadooda lagu qaban doono xarunta madaxtooyada taasi oo noqon doonta mid go'aan shacabku mahadiyo laga soo saaro. Muuse Biixi ayaa ugu horeyn beelaha Somaliland waxa uu ku eedeeyay inay yihiin kuwa dilaya nabadda dalka waxaana uu yidhi dalka nabadiisa waxa dilaya waxa weeye oo runtii aad iyo aad wax looga xumaada waa beeraha waa ogtihiin sanaagiibka dhowr sannadood dalku wuxuu ku sii jeedaa sanaag Somaliland oo dhan baa gashay sheekh iyo shariif da' kasta caalam kasta dowladda oo dhan waa la dhameeyay waxay ahayd in magti loo kala guro haddana shaydaan baa ka adeegay iyo nin xunoo balaayo wada maanta afartii bilood u dambeysay ee guddida ka timid halkii baa lagaga noqday qarankoo dhan arrintaa uu isugu tegey guul badan baa laga gaaray inuu dad badan dhinto inay colaadu fido ciidamadu in badan bay gacanta ku qabteen maanta intii dadkii loo tirinayay dambiyada labadii sarkaale ciidanka laga dilay oonu aad iyo aad uga xunnahay labada sarkaal ummadoo dhamina ka xumaatay ummadda qaranka oo dhamina aanu waxba ka kala harayn ciddii falka geysay si loo heli lahaa waxa uu xidhan 25 qof oo dhammaantood ku jira jeelka Mandheera ninkii shicibka ay ka dambeeyay oo isagana gacan ka gardar dishay ninkii dambiilaha lahaa ee dilay weli lama hayo laakiin 12 qof 314 baa loo hayaa iyo 95 halaad oo geela waxaan aad iyo ugu xunahay bini'aadamka islaamka iyo dhaqankeena Soomaalida ninka dhagaroobay wax dilaa dambiilaha uu soo qabta laakiin ay ka noqotayna jifada ninka dambe dishay Somaliland oo isku tagtay waaniyo wacdi waa laga galay haddana weli jiidi waa lagu qarqarinaya waxaan soo waa nin dee Somaliland oo diidaysa inuu baxsanahay waxaan taasi u direynaa qaran ahaan caawa oo aad loo ogeysanahay dilka labada sarkaal iyo ninka shacabka dhintay waxaan uga mahadnaqaynaa qoysaska ka dhintay iyo talaqabeenkoodu inay Somaliland badbaadiyeen oo aanay samaynin ay nafaq badan badbaadiyeen sida dadka wax magarantada iyo hebel baa la dilay hebel kala dilo baa la iska maraya aad iyo aad bay arrintaa qaran ahaan oo qadaf kale uga mahadnaqaynaa waana intaynu u baahanahay waxaana noole walaalayaal waa idinla midaysanahay dambiilayaasha waa la qabanaya idinkana nin tala xumi nin kale oo dambi gelin oo geelisa raacnay meel jooga inaanu dhibaato u geysan waa sida qolana hore ugu marayno haddaynu taa wadno kuwana waa la soo qaban la deedahayo ciidamada qolada waaxda garsoorka xeelaalinta iyo garsoorka iyo cidda ku shaqeynaya waxaanu amraynaa inay degdeg u bilaabaan sida kiiskooda maxkamadda loo horkeeni lahaa ee arrimaha loo hayo. geesta kale madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu ka hadlay khilaafka xisbiyada waxaana uu yidhi ma dardaaranka Somaliland gudaheeda horta caawa waxaan Cabdulqaadir Jidaan kuna caawa Cabdulqaadir kaan garanay caawa soo agtaaba ku bariyaha soo qiranahay Cabdulqaadir halkan adeegtay waa dhigay Faysal oo ku fadhiya sabtida 10ka cid kale la shaqeyn baayo xisbiyada ku shaqeynaya madaxtooyada insha Allah waxaan jiraa shirkaas inuu ku kala ka duwanaado oo shicibku wuxuu inaga naawilayo aanu soo saaro dadaalka xaqiiqiga aad iyo aad loo jecel yahay mar labaad aad wax baranaya Somaliland oo dhan shacab weynaha dadkii halganaha badan soo galay ciidamada qaranka ee caawa ku hurdo ee xadka ilaa xadka taagan jaararka oo dhan lagu baan jiraya gobolada arjaarka oo dhan dhammaantood nabad iyo gacan wada fidireynaa xadka Puntland noo dhaxayna ilaahay inuu xashay inuu nabad noqdo uma diyaarnayn maanta labadana dawladood oo iyagana dhaato waastaan gaari maanta inaan wixina colaad iyo in yaroo ka badano caraga iyo buuq galo waxaan jecelahay in arrinta nabadda xoojino iyagana dhinaca nabadda way ka wanaagsan tahay
ما waxaan doonayaa inuu ka digtoonaano dad fidmoolo oo dhex socdo kuma dabkanida maxamed aadan ismaaciil maxamed jiglan shabakada caalamiga ee Haruna News Hargeysa.